السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا qiimaha qadarinta wadaana salaam dhammaantiin walaal dunida joogtiin walaalkiin iyo mar kale iyo muuqaal kale halka anaga daawanaysin waa Mombasa anagoo baashaaleyno oo muuqaal qurux badan sharaftiisa wato view sharaf leh gaari qurux badan area qurux badan aan video niga soo duubaya halka hadda aan marayno waxaa weeyaan Chuda vloggeena wuxuu ku saabsan yahay Chuda ilaa iyo Nyali inta aan aqaan Mombasa ha ila socdaan marka barnaamijkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay wadooyinka iyo aqalada iyo magaalada jawigeeda Mombasa inaan i tuso waa jawi zaid u qurux badan oo wax loo dhigi lahayn asxaabay waxaan leeyahay Mombasa waxaa waaye meesha ku habboon in dalxiis loo imaado haddaadan gaari wad Mombasa ku dhex wadin Mombasa ma taqaanid saa u enjoy gareynayo sunglasskeygaan soo xirtay baal xanjo dheeraan soo xirtay sida inaan hilib geel ruugaya camal xanjo u ruugaya jawiga meesha hadda meesha aan marayn waxaa waaye stadium Chuda ka soo tagnay stadium aan maraynaa ilaa Pakistan aan mari doonaa marka dee la socod wanaagsan iyo hor waxaa ka aragtiin anoo balane walaarta muuqaalkan aniga juhud waa soo geliyey qurux waa soo geliyey dhankiina waxaa niga codsanayaa iyo juhdigaan soo geliyey lamida inaad gelisiin insha Allah oo like-ga commentiga iyo daawashada badan iyo share-ka inaad igu caawisiin waan ku mahadsantiin boqolkiiba boqol yar walaalkii ag fadhiyo oo zaid u qiimo badan iska qaranaya muuqaalka laakiin it's okay hadda Pakistan aan maraynaa meesha ugu shidan beryahan aqalada ay guryada quruxda badan ku yaalaan inkastoo ay guryada iska yar yihiin guryada ugu qurux badan ay ku yaalaan meeshan view-geeda haddii xaaladda jag ay tahay ama content creator tahay wallahi meeshaas deegaan ku dhilahay zaid oo qurux badan tahay halkanna waxaa weeyaan Nyali Bridge hadda maraynaa guriga ugu caansan dadka qaar waxay dhahaan gurigan Soomaaliya iskale nin Soomaaliya iskale marka inuu dulli noqdo u duloobo ayuu diiday saa darteeda dhismada xataa waa laga joojiyey hadda siyaasadda ma gali doono laakiin bridge-kan ninkii yaqaan waxaa la yiraahdaa Nyali Bridge Mombasa haddaa imaatid oo aadan Nyali Bridge soo korin waxay ka dhigan tahay badda ma aadin Mombasana saddex irid bas ay leedahay iridda koowaad waa meeshan Makupa iridda labaad waxaa waaye Ferry iridda saddexaadna waxaa weeyaan bridge-kan Mombasa haddii aad wax halaysid saddexda wado lagaa xirayo waa saddexdaas meel aad ka baxaysid male laakiin asxaabtay zaid u qurux badan oo qalbi fiican yihiin waxa laga niguma ogi marka hada bridge-aan dhaafnay waxaan maraynaa KFC-deena oo ku taalo Nyali Bridge KFC laba ku taalo horta magaalada mid waxay ku taalaa downtown-ka midna waxay ku taalaa Nyali Bridge meesha hadda jaamaan ku jirnaa iska enjoy gareynaynaa hora loo socon doonaa marka meesha ka baxno Nyali aan galaynaa Nyali haddii la galana quruxdii hadda aan soo xisaabayna dhan waxba laguma wado zaid oo qurux badan Nyali meel degmada ku habboon way ahaan lahayd with one condition haddii bridge-kan uu jiri lahayn ani Nyali waan igula talin lahaa asxaabteyda laakiin keena waxba isma dhaamaan aqaladii waxba isma dhaamaan laakiin dibka jiro waxaa waaye jaamka galabtii la galo hadda saan jaamaan ku jirnaa jaamka galabtii la galo galabtii aad jaam galay ilaa iyo almost 40-30 minutes ku jire marka dhibkeeda weyn waa unka hadday aad gaarigaada qabtid oo jaamkaadana u dul qaadan kartid Nyali degaan ku dhihi lahay badda kaaga dhow zaid oo qurux badan in la dego hakan aan marayno waxaan bilawnay inaan ku socono Reef wadadii maxaan ku yiraahdaa
links road ayaan bilawnay waka hadee inta aan ku sheegay waa inta green geedada quruxda badan degmada ku fiicanta waxaan ku leeyahay environment-ga meeshan iyo oxygen-ka wallahi ma sha Allah ya waa xanuunsaday iyo ya hawada xun iyo ma jirto meeshan badii geedo quruxda badan iftiinka sharafta ñaaliyan degana dil u dhaacada waxa way xogo adi upgrade yara samaysay marka hakan aan marayno dadkii yaqaano waa Simba Road wali waxaan haynaa Links Road straight Links Road marka dadka qadeeya degan meeshan dadka qadeeyo ayaa degan ana xataa waxaan isku arkaa meesha markaa maray inaan xogo mataqaanaa aw bidaar ee bilowday laakiin inka ay bilaabi karo hadii muuqaaladeedu markay nii soo gaaraan sharaf aasiisiin oo like dharac ku siisiin ilaan juhdi badan soo gelinayay waa gaara aniga hadii ilaahay raad insha Allah waa wada gaareen maxay yar hadda ani gaaro waxay ka dhigan tahay inkana waa gaartiin marka in egg view-gan war egg quruxdan war egg green-kan meel waxaa jiro oo aan geedo lahayn meeshana geed xad la'aana looga abuuray ilaan geedaha macnahooda yaqaanaan in bini'aadanka noloshiisa iyo geedaha in oo kaalin weyn ay ka qaato geedaha kaalin weyn ay ka qaataan ay og yihiin dadka qadeeyo ay yaqaan sidii la isku treat kareeyo laakiin qofku markuu miskiin yahay ya geed wax uu ka yaqaan male iyo doog iyo wax uu ka yaqaan male ayelay xaaladiisa ma insha Allah iska dadka qadeeyo sida yuyu oo kale ay yaqaan intaana kabtan iga tahay gurigan oo Nyali Golf leeyahay waa guriga ugu quruxda badan Nyali view-giisa Nyali Golf view Allah view-giisa wax loo dhigay male hadda Nyali Golf view aan dhaafnay waxaan joognaa roundabout-ka waxaa la dhahaa beach road markaa ka tagtid hore u socotid meel u qurux badan hadda si galeynaa waxaan bilaabi doonaa gacantaada midig waxa ka qabanayo Nyali Golf gacantaada bidixna Mamba Village haddaadan Mamba Village imaanin maba soconin baadi oo yaxaas caadi u qaadin yaxaas lagu dhiibaa galistu waa raqiis ya kasoo tagtaa nicmooyinka inta way isdudul saaran yihiin qofkii enjoyment dee qof qadeynaya la doonayaa mugtahay qofkii enjoyment diyaar u ah Mombasa inuu ku enjoy gareeyo inbox juka isu siiyo anaa u shidayaa ku dhahay meesha markii laga soo tago meeshan waxaa la yiraahdaa Wild Waters waa the biggest water park in whole Africa ya muku celiya waa water park ugu weyn Africa oo dhan meeshan ay mana wareerin ama ma enjoy gareynin walaa hol ku taalo waay maxaa yeelay qofka gacanta adag meel fiican ma isgeeyo naftiisa ma treat gareeyo war naftaada treat gareey maalintoo si jees ka quraaco hal maalin loo waay bil dhan oo hadaarto masqosh ku jir ya lacagta maalinta ka baxdo bil dhan oo hadaartid fahmay maalin waxa la rabaa naftaada inaad treat gareysid oo gaari qurxoon soo qaadatid aad soo baxdid naftana treatment ay u baahan tahay meesha waa la wada saaran yahay kaligeed ma saarnay inta isdhaqaalayn karta la saaran meesha ya asxaabay codsi waaye channelka hadaa ku cusub tahay waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe soo saartid asxaabtaada u share gareysid dee igu sharaftid intaa on subscribe-ka beesa ma aha ma gadaysid adi ma gadaysid anigu igu sharif ama igu casuun inaad subscribe ii saartid oo muuqaalkana asxaabtaada u share gareysid ama intii iyo taqaano u share gareey kii xayraanka ahaayo la dhahay fiiri de saaxiibkaada u dir qofka iyo yaqaano kale u dir hal i arko war i arka muuqaalan soo dhigaa waa soo daalaa hal i arko
marka asxaabay codsigii intaasay ahayd waana ku mahadsantihiin boqolkiiba boqol saadiiqa dariseen ood ii garab taagantihiin mar waliba sharaf iyo karaamo intana meesha hadda aan marayo gacanteeda midig waxaa ku taala duniya garden maama Soomaaliya askare waa meesha ugu quruxda badan ya Soomaaliya markii meesha ay leedahay waa resort qurux badan leftigeyga waa Nyali Center imow magaalada Shido Nyali Center waxyaabo badan ka helaysaa meesha markii laga soo tago waxaan gali doonaa wadadii weyneed marka vloggeena ama socodkeena meeshan ayuu ku eg yahay